gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise Maxamed ayaa ceelbiyood ka dhagax dhigay degmada Xamar lagu xidh ee gobolka Cayn. Ceelbiyoodkan ayaa ku soo beegmaya xilli biyo la'aan baahsani ka jirta deegaanada. Ceelkan ayay iska kaashadeen wakaaladda horumarinta biyaha dowladda Puntland iyo hay'adda UNICEF. Munaasabadda dhagax dhigga ayay ka soo qayb galeen culimada cuqaasha iyo waxgaradka magaalada Xamar lagu xidh. Waxaana ugu horeyntii halkaas si wada jir uga hadlay culimada iyo cuqaasha magaaladaas. goobtan aan taagannahay aan ka rajaynayno inaanu ka qodno ceelka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu inoo barakeeyo Allah subxaanahu wa ta'aala ha inoo barakeeyo nimanka qodaya ee wata qalabkana Allah u fududeeyo qoditaankiisa waa maalin deegaanka ku weyn oo aad noogu qiimo badan waa waqti ku haboon baahida laga jawaabay ee maanta dawladda Puntland ka soo jawaabtay waa waqti aad iyo aad ugu haboon uguna qiimo badan haddaanu deegaanka nahay odayaashiisa waad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa baan salaamayaa barasaabkeena jooga oo aan jeclaan lahaa ilaahay haddii riigaga noogu dhiibo waxaanu noqon lahay nin iyo riig ma garatay maartay wayna noqon doontaa haddii ilaahay maynu sii noolaano waxaa muxuu waa salaamayaa kambanigan salaamayaa waa dadkeennii waa ummadeennii waxa weeye waa biyo aad adigu isku hayso oo tiknikadii adigu tahay oo jooladkii tahay oo dhulkii laga qodayo tahay oo ma garanaysaa aad iyo aad baan arrintaa u arkaa marka waxa weeye riigani mid hodan oo hoodiya nasiib loo hana qaaday weeyaan sida heega curatiya hogol seerma weydiya guga oo hilaaciya haradoo biyowda laga wada hirqanayaa nimankii u howlgalay iyo nimankii u howlgalay ee hindisaha lahaa annagaan u kala heedhin hambalyaan u dirayna waxaa ku mahadle cid kasta oo ka soo shaqaysay hadday wasiirre yihiin iyo hadday xildhibaanada gobolka ka soo jeeda yihiin siba kuwa deegaanka ka soo jeeda hadday barasaabye yihiin cid kastoo mas-uuliyiina oo juhd iyo dadaal gelisana waxaanu leenahay jazaakumullahu khayr jazaa intaa kadib waxaan ilaahay weydiisanaynaa dhammaanteen riigan xamar wuxuu quri male wuu ka qodmayaa waxaa leh cid allaale ciddii degaamada aan riiggu ka taagnayn oo dhan baa leh xamar wuxuu wuu ka qodmayaa laakiin lahaanshaha waxaa leh cid allaale ciddii gobolka Cayn bariga gobolka Cayn buu hodle ee aan riig ku oolin dadka jooga riigan uu qodmaya waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala bid intifaac badan laga helo oo dadka dhamaantii deeqa oo intii u baahataba deeqa Allah ka dhigo ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdifataax Ciise riig in badan soo socday oo maanta oo sabti aan u taagannahay dhagax dhigeeda awalan ilaahay baa mahad leh xuqaasha in garboodka deegaanka iyo ganacsatada waa u mahadcelinaa sida sharafta leh ay maanta waliba xilliga adaga noo soo dhaweeyeen ay soo ka xilqaameen shirkadda Nugaal oo iyaduna aan uga baranay inay ceelal waafiya deegaanka qodo oo kuwa hor ku guuleystaan ilaahay waxaan ka baranay kan ay ku guuleysto oo fududeeyo ka gudoomiyahan waxaan malanayaa inaan ceelkii labaad ee ama dhagax dhiga ama aan fara u yahay kan waxa ka horeeyay intii aniga nasiibka ugu sameeyay deegaanka Shangalle waa ka ugu biyaha badan kan wuxuu noqon doonaa ka labaad buu noqon doonaa hadduu ka sii biyo badan insha Allah billahi kariim mahadnaqa waxaan ka bilaabaynaa haddii Allah awoodo kala dawladda Puntland wakaaladda biyaha ee Puntland oo hogaaminaya Maxamed Cabdiqaadir aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wakaaladaasi waa wakaaladda ama wasaaradda ugu shaqada badan deegaanka gobolka Cayn oo deegaanku maamul ama cid kale oo siyaasad kula tartamaysa oo dhanka riigaga ama jiro markaan run ka hadalno xildhibaanada deegaanka ee gobolka Cayn ka soo jeeda waa dadaaleen waxaan kale u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Xaaji Axmed Aadan waa dadaalay deegaankan oo in badan ku taamay war deegaankaas riig ma leh maanta inaan miliyada gorano aan deegaanka riig ka taagino dhamaantood wasaaradda arrimaha gudaha oo kal hore markii golaha deegaanka la dhisayay halkan soo maray wafdi uu hogaaminayo wasiir Maxamed Cabdiraxmaan Dhabaacad oo u ballan qaaday in deegaanka riig helayo midna wasiir maanta waxaad marxaati ka nahay oo anagu aan kugu matalaa in maanta riig aan dhagax dhigayno ballan qaadkaaga inuu fulay aan marxaati ka nahay intii hogaaminayay xukuumaddan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waa xukuumadda horumarka runtii waxyaalo badan oo dhanka deegaanka horumarka bay ka wadaa gobolkan Caynna waa madaxweynihii ugu wax qabad ka badnaa oo si wacan loo shaqeeyay dhanka ciidamada
dhanka horumarka iyo deegaankaba waxaan leenahay madaxweyne adiguna guul baan ku rajaynaynaa